Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada Yasmi Yaasiin. Insha Allah maanta waxaynu halkan kasii wadi doonaa cashirkii ku saabsanaa history taking-ka ama wareysiga dhexmara bukaanka iyo dhakhtarka xilliga la joogo xarumaha caafimaadka qaybtiisii labaad. Fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe-ka naga ilaawin, haddii aad horey noola joogteen like-ta nagu caawi si dad badan ay uga faa'iidaystaan wana sii share garee insha Allah. qaybtan insha Allah waxay nooga bilaabanaysaa waxaanu maraynay hadaba patient's profile waxaa kamid ah date and the time, waqtiga uu ku imaaday iyo taariikhda, neemkiisa, da'diisa, jinsiga uu yahay, markaa diintiisa mararka qaar muhiim maahan, marital statuska mararka qaar waa muhiim qofka inuu single yahay inuu married yahay, shaqadiisa mararka qaar muhiim ma ahan qofka in la qoro, mararka qaarna waa muhiim, adressku degan yahay waa muhiim iyadana, iyo sidoo kale qofka ku siinaya warbixinta. Sababtoo ah halkan waxaa jirta kaba soo qaad markuu bukaanka yahay ilmo oo kale oo maaragta ilmo yar oo aan hadli karin oo sida loo hayo aan ka warbixin karin, waxaa macquula markaasi qofka wada ilmaha, tusaale ahaan hooyada oo kale, ama qofka markaasi wada in maaragtay uu warbixinkaas siiyo ilmahan see loo hayaa, ama se waa qof waayeelo aan bahadal iyo aan awoodi karin ama aan ka warbixin karin sida loo hayo. markaas who gave the history, yaa ku siiya markaas history qofka la socda, waa inaad ku qortaa faylka. Chief complaint waxaa waaye the main reason for which the patient is trying to seek medical help by visiting the physician, yani sababta ka dambeysa inuu bukaanka eego daryeel caafimaad iyo sababta u imaaday isbitaalka uu doonay in laga caawiyo. Yani waa masalan qofka cilada uu ka cabanaya markaasi. Statement describing the symptom, problem and the diagnosis, adoo markaasi qeexaya calaamadaha haya, cilada keentay iyo waliba xanuunka markaasi uu noqon karo. Usual single symptom, occasionally more than one complaint, mararka qaarkood waxaa dhici kara in hal calaamad ay soo dhexgeli karto calaamado badan. Tusaale ahaan oo kale fever, headache and pain oo kale, yani qandho, madax xanuun oo kale. yani bukaanka inuu hal wax kuu sheego laakiin halkaas wax ay gudaheeda aad ka dhexeli kartid calaamado badan. The patient describe the problem in their own words. dabcan sida caadiga ah bukaanka markuu dhakhtarka soo booqdo xanuunka marka aad ka wareysanaysid wuxuu kuugu sharaxayaa ereyadiisa oo markaasi ma adeegsanayo waxaa loo yaqaano medical terms ama ereyada qaamuuska caafimaadka muu adeegsanayo. markaas adiga waxaa lagaa rabaa as physician ama inaad waxa weeye aad markaasi aad garan kartid bukaankaas meesha u jeedo ama aad fahmi kartid waxa weeye cilada haysa. It should be recorded in the patient's own word, markaasna waa inaad ku diiwaan galisaa ereyada uu bukaanka ku sheegayo. waxaa noo sii socdaa chief complaint. Chief complaint, how to ask chief complaint, waa inaa marka hore weydiisaa what brings you here, halkan maxaa ku keenay oo kale, isbitaalka maxaa u timid, how can I help you, sideen ku caawiyaa, what seems to be the problem, sidee baad u aragtaa dhibaatadan jirta ama ciladan caafimaad ee jirta. If there is more than one complaint, haddii ay jirto wax ka badan hal cabasho, it will be written according to the chronological order, yani waa inaa u qortaa say u kala horeeyaan. For example oo kale bukaanku wuxuu ku dhahay waxaa ihaya qandho 2 asbuuc, sidoo kale qufac xaaka wata 2 asbuuc, waxaa loo yaqaana productive cough, vomiting matag 2 beri ahaya, iyo waliba fatigue ama daal baan dareemaya oo ah maalin. marka waa inaa saa u qortaa sida uu bukaanku kuugu sheegay oo kale, waxaan dareemayaa qandho, qufac, matag iyo waliba daal, waa inaa sida uu kala horeeya u kala sheegtaa. hadaba qodobka saddexaad waxaa weeye history of presenting illness, in masalan tusaale ahaan oo kale markuu bukaanka ku dhaho waxaan dareemayaa ama waxaan ka cabanayaa matag, inaa weydiisid si faahfaahsan u weydiisid. Elaborate on the patient on the chief complaint in a detail, yani inaa si faahfaahsan u weydiisid
ask relevant symptom inaa weydiisid wax la xiriira maaragta ii sheeg cabashadaas uu kuu sheegay. Tusaale ahaan hadduu patient ku dhaho ama bukaan ku dhaho waxaan ka cabanayaa matag, inaa weydiisid mataga ma jiraan calaamado la xiriira sida shuban, labolabo, madax wareer. Gain as much information about the specific complaint. Waa inaa isku dayda inaa heshid information badan ee la xiriira cabashadaasi. intaa kadib waxaad weydiinaysaa waxyaabo loo yaqaano open ended questions, su'aalo furan baad weydiinaysaa. goormuu ku qabtaa, xiligeebuu maaragta waxa weeye cabashadaas aad ka cabanaysid baa isku aragtay, goormuu kugu bilowday, wax kugu kiciyo ma jiraan, taas oo kale. When is the patient has complete their narrative, then closed question it can be asked. Yani inaa weydiisaa haddana su'aalo xiran oo yes iyo no ah. Leading questions are to be avoided. Yani inaa sheeg aad siisid su'aalo uusan maaragtay uusan hubin oo kale, ama su'aalo aad is leedahay adigu un maaragtay aad afka u gelin. sidoo kale mar walba inaa qofka bukaanka aad ka warsugtaa isaga qaabka uu kugu siinayo warbixinta ama wareysiga. Open questions allow patient to express their own thought. Yani waxaa laga wadaa inaa patient u ogolaatid in uu kugu sharaxo ereyadiisa iyo dareenkiisa. Is there anything else that you wanted to mention? Masalan tusaale ahaan oo kale inaad tiraahdaa ma jiraan wax kale oo aad rabtid inaad sheegtid ama mention garaysid. Closed questions are requesting for factual information like when did this pain start, like goormuu xanuunkan kugu bilowday, baa laga wadaa su'aalaha xiran. Leading questions means based on your own assumption that lead the patient to answer you wanted to hear. Yani waxaa ku hagaysaa sidii aad rabtay inuu markaasi patientiga kugu jawaabo. Yani waad hagaysaa ama wax u sameynaysaa guide, hagid. sidoo kale waxaa jira wax la yiraahdo inaa weydiisid time onsetka, mode of evaluation, yani xilliga uu bilowday, muddada uu socdo cabashadaas uu ka cabanayo. waxaa la yaqaano sidoo kale calaamadaha uu leeyahay haddii ay la xiriiraan waxyaabo positive ah oo markaasi ay is leedahay xanuun unbay maaragta markaasi kugu jihaynaysaa. sidoo kale avoid medical terminology and make sure of descriptive language that's familiar to the patient. waa inaad iska joojisaa erayada qaamuuska caafimaadka, aadna adeegsataa luqad uu patientiga ku fahmi karo. sidoo kale waa inaad aad patientiga informationka uga qaadaa sida uu kuu sheegay una kala horeeyaan. History of presented illness, waxaa jira waxyaabo tibis ah oo aad maaragtay ay tahay inaad mar walba patientiga ama bukaanka aad u weydiisid sida ay u kala horeeyaan. tusaale ahaan oo kale patientiga wuxuu ku dhahay waxaan dareemayaa xanuun xagga sare ee laabta ama xabadka. marka waa inaa weydiisaa xanuunkaas meesha uu ka dareemayo. onsetka yani xanuunkaas sida uu dhacay, mase wuxuu u dhacay dhaqso ah buu ugu soo booday, mise si tartiib ah buu u dareemayay. sidoo kale character, xanuunkaasi xanuun see ah weeye oo qofka waxaad leedahay xanuunka ku haya maxaad ku qiyaasi kartaa waa xanuun noocee camal ah oo kale. Radiation, xanuunkan ku haya ma jiraa meel kale oo xanuunkii uu ku faafay oo aad ka dareemaysid. Alleviating factors, ma jiraan waxyaabo xanuunka markii aad samaysay xanuunkan kugu kicinaya. Timing, sidoo kale xanuunkan marka uu ku qabto intee buu ku hayaa. Exacerbating factors, waxyaabo markii aad qabatid xanuunka uu kaa tegayo. iyo weliba waxaa weydiinaysaa history of presenting illness, yani bukaankan calaamadii uu kula imaaday baad sii faahfaahinaysaa oo si sax ah usii weydiinaysaa, macluumaad dheeraad sii weydiinaysaa si wax badan aad uga ogaatid. hadda masalan oo kale example-kan noogu qoran shaashada, the patient was apparently well 1 week before the admission, yani patientiga uu fiicnaa asbuuc ka hor. saan oo kale ba u faahfaahinaysaa hadhowti history of presenting illness adoo macluumaadka ka qaadanaya qofka bukaanka. when the patient fell while gardening and cut his food with stone, yani waxaa lahay bukaankan tusaale weeye
asbuuc kahor wuu fiicnaa intuusan isbitaalka soo seexan. Kadib waxaa la dhahay sikadiisa buu u dhacay, cagta baa waxaa kaga dhacay dhagax, kadibna cagtii baa dhaawac kasoo gaaray. Cagtiina waxay noqotay in cagtii ay bararto oo uu socodka kari waayo. Kadib maalintii ku xigtayna waxaa la yiri wuxuu aaday clinic buu aaday, meel isbitaal yar oo khaas ama xarun caafimaad oo yar. Kadib waxaa la soo siiyay oral medications baa la soo siiyay. Kadib waxaa la dhahay patientigii wax maaragtay bogsasho muusan ka dareemin, daawada magaceedana maysan u sheegin. Sidoo kale patientigii xanuunkii lugtana waxba kama aysan bi'in. Sidoo kale wax maaragtay waxayna ku dhaheen in ay ka bi'in doonto xanuunka lugta, laakiin bukaanku sida uu xaggan ku qoran wax maaragtay reesasho kamuusan dareemin daawadaas. Kadib 2 maalmood kadib markii admissionka loo sameeyay, patientiga lugtii way barartay, waxayna bilowday inay yeelato malax ka soo baxdo, qandho zaa'idan wuu yeeshay iyo qarqaryeel rigors la socoto, iyo nausea iyo labalaba iyo matag. qaybtaas waa history of presenting illness, yacni saasaa u sharaxaysaa qofka markuu xaaladiisa caafimaad saas baad u maaragtay faahfaahinaysaa marka uu bukaanka ku imaado xaaladda saxda ah jirta, sida ay ku bilaabatay iyo sida u kala horeeyaan. sidoo kale past medical history waa any history of similar complaint, yacni cabashada kuu sheega bukaanka hadday jiraan wax taariikh la xiriira oo ku saabsan calaamadaha uu ka sheeganayo. other medical problems hadday jiraan patientiga uu kuu sheega, sida hadday jiraan waxyaabaha xanuunadan chronic disease-ka laysku dhaho hypertension iyo diabetes, past hospitalization ama past surgery hadday jiraan. sidoo kale history of travel hadday jiraan, sababtoo waxaa jira xanuuno lagu kala qaado xagga safarada. haddii ay jiraan wax medication uu qaatay, waxaa weydiinaysaa dooska iyo xilliguu qaatay. hadday jiraan wax past medical history oo bukaanku isaga naftiisaan u qabay oo la xiriira xanuunada allergiga iyo xasaasiyadda. sidoo kale hadduu ilmo yar yahay, waxaa weydiinaysaa history of the past, ilmaha markuu dhalanaya xaaladiisa dhalashada, markuu dhashay xaaladiisa seebay ahayd, markuu soo koreeyay oo soo kobcayna xaaladiisa koritaanka seebay ahayd. immunizationka talaalka ilmaha loogu talagalay ilmaha muxuu ka qaatay oo kale waa duu ilmo yahay. haddii qof female tahay, waxaad history ku daraysaa inaa weydiisid. haddii qof maamaa tahay oo la qabo, waxaa weydiinaysaa caruur hadday leedahay, xiliyadaas caruurta ay dhalaysay, uurarkii hore iyo uur walba xaaladii ay ku dhashay. hadday qof dumar oo gabar tahayna ay weli la guursan, waxaa weydiinaysaa gynecological history oo la xiriirta xagga menstrual cycle-ka ama periodka. family history-yadan sidoo kale waxaa weydiinaysaa in bukaankani ay jiraan wax xanuuno oo familkiisa uu qabo, sida xanuunadan infectionka lagu kala qaado, xanuunadan la isku gudbiyo, xanuunada caabuqa ka dhasha. hadday jiraan wax familkiisa ka tirsan oo xanuunsan, hadday jiraan xanuunka uu ka cabanayo familkiisa cid qabta oo calaamadaha ka cabata. sidoo kale waxaa weydiinaysaa hadday jiraan wax familkiisa oo qaba asma ama xanuunada xiiqda oo kale iyo cambaarta. parent and siblings suffering with chronic disease, hadday jiraan dad walaalihiisa ama familkiisa oo chronic disease la xanuunsan, sida hypertension, diabetes, cancer. haddii ay jiraan waalidkiis hadday nool yihiin, baa weydiinaysaa. hadday dhinteenna sababta u dhinteen iyo da'day ku dhinteen. sidoo kale waxay kaa caawinaysaa in wuxun aad soo saartid xanuunka saxda ee bukaankan haya, ama hadday jiraan wax arrimo family diseases ama cudurro familka oo bukaankan uu laga yaabo in xanuunkiisa ay la xiriirto xanuun family history oo qof kamid ah familkiisa hore usoo qabay. kadib waxaa weydiinaysaa socio economic conditionska, hadduu degan yahay guri ciriiri, dad ku badan yihiin, xaaladda nafaqada ee familka malnutritionka. qodobkan wuxuu ka caawinayaa hadhow markii bukaankan aad daawada u qoraysid in aad ogaatid xaaladda caafimaad ama xaaladda nololeed ee bukaankan ku sugan yahay, si aadan daawo qaali ugu qorin oo daawo caadiya oo lacagteedan iska raqiis tahay oo bukaankan uu ka bixi karo awoodeeda leedahay aad u qortid. marka tan waa muhiim, sababtoo ah bukaanada qaar waxaa jira aan awoodin inay daawo kasta iska bixiyaan. dhakhaatiirtana daawooyinka qaar way iska qoraan, marka waxaa jirta dhakhaatiir 3 daawo soo qori kara dhakhtarku bukaankan uusan ka bixi karin oo hal daawo xataa uusan gadan karin. marka dhakhtarku waa inuu qiimeeyaa xaaladda nololeed ee qofka uu markaas u diraa daawo uu ka bixi karo inuu hadhow soo gato si uu ugu caafimaado.
personal history iyada waa soo sheegnay, laakiin hadda markan waa iska guud mar. iyada waxaa weydiinaysaa waxyaabaha qodobada muhiimka la rabo personal history inaa waxaa kamid ah abitaadka qofka, abitaadkiisa waa si abitaadka u furan yahay mise uu ka xiran yahay, dietkiisa fiirinta. sidoo kale bowel habits qofka calooshiisa ma fadhidaa mise way socotaa, sleepka hurdada ma ku yartaa mise way ku badan tahay. menstrual history xagga kaliyaha iyo kaadi mareenka waxaan ma ka jiraan, haddii qof dumar tahayna menstrual history weydiinaysaa oo la xiriirta periodka. sidoo kale waxaa weydiinaysaa haddii jiraan wax history la xiriira maaragtay isheeg sigaar cabida, haddii waxaa weydiinaysaa history la xiriira khamrada, hadduu khamro cabo patientiga. sidoo kale waxaa weydiinaysaa haddii jiraan wax daraaga oo la qabatimay oo hadda isticmaalo. sidoo kale waxaa weydiinaysaa history of sexual history haddii jiraan, waxay ka caawinaysaa in aad wuxuun aad ka fahantid haddii ay jiraan oo kale cuduradan lagu kala qaado galmada ama laisku dhaho sexual transmitted disease. sidoo kale waxaa weydiinaysaa occupation, social and education, taas oo ka caawinaysa inaa ogaato xaalada guud oo ku sugan yahay bukaankan, sababta waxaa jira xanuuno yaryar oo ka dhalan kara hab nololeedka qofka ama qofka si u nool yahay noloshiisa sida ay tahay iyo duruuftiisa nololeed. akhyaaray cashirkii ku saabsanaa history taking qaybtii labaad intaasay ku eg tahay. haddii aad wuxuun ka faa'iiday waxa weeye insha Allah la sii wadaag asxaabtaada. haddii aad wax su'aal qabtidna hoos ba igu soo weydiin kartaa qaybta commentiga. cashirkaani qof kasta ma fahmi karo ilaa iyo dadka aan ka ahayn maaragta xirfadlayaasha caafimaadka, dhakhaatiirta, ardayda barta kulliyadaha caafimaadka ee kala duwan. iyo